السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جنالك مركلة سودوا مركلة يعني سكوسو لابناي go'aankii xeerbeegtida ee dacwadii 7 qof ee Soomaalida uga socotay magaalada Minneapolis oo soo baxday waxaan ognahay xeerbeegtida kiiskan in gacanta loo geliyay galinkii dambe ee Isniintii maanta maaku 5 maalmood ayay ka baaran dagayeen kiiskan hotel ayay ku jireen markii Isniintii ama Axadii fiidkii ay soo baxday in mid ka mid ah xeerbeegtida la isku dayay laaluush in gurigiisa loogu geeyay oo la siiyo kadibna booliska ay u sheegtay waa kii juurigii laga saaray halkii qof oo lacagtaasi loo geeyay juuriga uu garsooruhu ka saaray Nancy Brazel ay ka saartay isla markaana 16 ama 17 soo hartay hotel ayaa lagu xareeyay mid kamid ayaa qoyskiisa wacay waa tii isagana maxkamadda markii talaadadii uu yiri qoyskayga ayaan la xiriiray waxaan uu sheegay inuu ka war helay in lacag laaluusha ay jirto markii aan iri hotel ayaana lagu xareeyay laaluushka darteed miyaa yiri isagana waa laga saaray marka halkaas waxaa isku soo hartay 16 juuri ah oo kiiskan 7 qof ee Soomaalida loo haysto lacagtii 250 milyan ahayd oo caruurta loogu dalakaray xilliga coronavirus-kan cunto lagu siiyo oo la musuqmaasuqay iyagu waxay ku eedeysnaayeen 40 milyan oo dollar in 7daasi qof ay musuqmaasuqeen haddaba marka juurigii maanta 12 iyo barkii duhurnimo ayaa waxa ay yiraahdeen go'aan ayaan gaarnay oo verdict ayaan gaarnay kowdii duhurnimo waqtiga Minnesota ayaana juuriga ay aqriyeen amaba ay sheegeen verdictigi ama go'aankii ay gaareen maxkamadda waxa la isugu yeeray eedeysanayaashii 7 qof oo Soomaalida dacwadoogayaashii qareenadii u doodayay Soomaalida garsoorihii waa u yimid markaasi kadib ayaa halkaasi laga akhriyay 7 qof ee Soomaalida oo eedeysnayd 2 kamid ah dambi waa lagu waayay halka sidoo kalena 5 kale qaar kamid ah dambiyadii lagu helay qaarna lagu waayay marka ma jirin qof lagu helay dhamaanba dambiyadii lagu soo eeday haddaba marka sidee arintan loogu kala helay dambiyada Soomaalida qaarna loogu waayay qaarka sidoo kale dambiga lagu waayayna waan idin la wadaagi doonaa waxa ugu horeeya Cabdicasiis Shaafi Faarax waxa uu ku eedeysnaa 24 dambi ayuu Cabdicasiis ku eedeysnaa qofka ugu dambiga badan ayuu ahaa marka 23 kamid ah ayaa lagu helay dambiyadii 24ka uu ku eedeysnaa halka dambi oo lagu waayay wuxuu ahaa wire fraud waxa la yiraahdaa qofku marka lacag uu isugu diro dhinaca isgaarsiinta ama wadanka dibadiisa u diro ama gudaha email ha ku diro ama fax ha ku diro wire fraud taas la yiraahdaa qofku in lacagahaasi uu isdabamarin oo meelo kala duwan oo u diray halkaasi dambi waa lagu waayay marka 23 kamid ah 24kii dambi ee lagu soo eedeeyay ayaa lagu helay halkaas dambina waa lagu waayay waxa soo raaca Mohamed Jaamac Ismaaciil isagana waxa uu ku eedeysnaa 4 dambi 3 kamid ah ayaa lagu helay halka dambi oo isagana lagu waayay waxa uu ahaa wire fraud sida Cabdicasiis ba sidoo kale dambigaasi loogu waayay qofka saddexaad waa Cabdimajiid Mohamed Nuur asaga Cabdimajiid waxa uu ku eedeysnaa 13 dambi ayuu ku eedeysnaa 10 kamid ah ayaa lagu helay 13kii dambi saddexda dambi ee lagu waayayna waxa yihiin money laundering isdabamarin lacageed ayaa lagu waayay oo ah saddexda dambi oo lagu waayay marka 13kii uu ku eedeysnaa 10 waa lagu helay oo guilty ayaa la yiri halka 3na lagu waayay waxa soo raaca Saciid Shaafi Faarax oo Cabdicasiis ay walaalo yihiin Saciid waxa uu ku eedeysnaa 9 dambi ayuu ku eedeysnaa niraade Saciid Shaafi Faarax 9 dambi ayuu ku eedeysnaa dhamaanba 9kii dambi oo ku eedeysnaa waa lagu waayay not guilty ilkaas waa beri oo hadda meeshuu raba ayuu mari karaa dambigii waa lagu waayay wadankan ama guud ahaanba sharcigu waxa uu yahay qofku waa dambi la'aan ilaa dambi lagu helay everybody is innocent until found guilty marka qof kasta waa dambi la'aan ilaa iyo dambi lagu helo marka Saciid 9kii dambi oo lagu soo eedeeyay dhamaanba 9kii dambi waa lagu waayay Cabdiwahaab Maalim Iftiin isagana sidoo kale waxa uu ku eedeysnaa 3 dambi dhamaanba 3dii dambi waa lagu waayay marka labadaasi qof ee Cabdiwahaab iyo Saciid dhamaanba dambiyadii lagu soo eedeeyay waa lagu waayay not guilty ayaa la yiri marka hadda waa xur meeshii ay rabaan ayay mari karaan haddii dacwadoogayaashu ay abiil ka qaataan arintaas waa meesheeda laakiin hadda wax dambi xeer beegtidu waa ay ku waayeen waxa soo raaca Mukhtaar Maxamed Shariif oo isagana waxa uu ku eedeysnaa 6 dambi waxana lagu helay 3 kamid ah 6dii dambi oo ku eedeysnaa marka 3 ayaa lagu waayay 3na waa lagu helay waxa ugu dambeysay gabadha la yiraahdo Xayaad Mohamed Nuur iyadoo waxay ku eedeysnayd 5 dambi 5tii dambi 3 kamid ah ayaa lagu helay marka sidaasi ayay kala noqdeen dambiyadii lagu helay Soomaalida
toddoba qof ayay ahaayeen, laba dembi waa lagu waayey, shanna waa lagu helay, inkastoo shantooda dhammaanba dembiyadii ay ku wada eedeysnaayeen aan lagu wada helin oo qaarna lagu helay qaarna lagu waayey. Marka maxkamadan 22kii bishii Abriil ayay soo bilaabatay ee afraad, hadda waxa ay maraysay toddobaadkii toddobaad ayay maraysay oo maxkamadan ay socoto, bil iyo bar ayay kor u sii dhaaftay. waxaana ay weji kala yeelatay maxkamadan isniintii lasoo dhaafay markii maxkamadda la isugu yimid oo ay soo baxday in laaluush la isku dayay in la siiyo mid kamid ah xeerbeegtidii $120,000 oo FBI-du hadda weli baaritaan ay arintaasi ku wadaan. Arintaasi waa kiis kale, waa dembi kale oo haddii toddobadan qof ee hadda dembigan lagu helay ayraadee qaar ka mid ah dadka dembigan lagu helay qaarna lagu waayay, haddii ay kusoo baxdo in iyagu lacagtaasi ay bixiyeen ama amreen in la bixiyo, waxay noqon kartaa dembi kale oo qofku 10 sano ilaa iyo 20 sano xabsi u dhaxaysa ayuu ku mutaysan karaa haddii uu isku dayo qof juuri ah oo xeerbeegti ah oo kiis dhageysanaya in uu laaluusho. Waan ognahay mid ka mid ah toddobadan qof oo ayaa gurigiisa la baaray, Cabdicasiis, sidaan ognahay, oo arbacadii ay ciidamada FBI-du ay baareen, bokisyo fara badan ayay kasoo bixiyeen ayaa la leeyahay. Marka arrintaasi waxay daba socotaa lacagtaasi $120,000 xaggay ka timid. waxaana horey idinku sheegay in magacyada iyo ciwaanada dadka xeerbeegtida oo kaliya ay heli karaan qareeno dacwadoogayaasha, qareenada eedeysanayaashan u doodayay, iyo sidoo kalena eedeysanayaasha nafsad ahaantooda oo kaliya ayaa heli karay. marka arintaasi xaggay ka timid, arinta FBI-du hadda weli ay baaritaan ku hayso. hadda toddobadan qof ee Soomaalida oo 2 ka mid ah dembi lagu waayay, 5 qaar ka mid ah dembiyadii lagu helay laguna waayay, waxay ka mid yihiin 70 qof oo arintan lacagta $250 milyan oo lacagtii caruurta loogu talagalay in lagu quudiyo xilligii coronavirus-ka in la musuq maasuqay. hadda 63 ayaa dacwadooda weli ay harsan tahay oo la filaya ama sanadkan dhamaadkiisa in ay dib u bilaabato ama sanadka soo socdo horaantiisa. 18 ka mid ah dembi ayay qirteen. marka xilliga la xukumaya marka dadkan Soomaalida ah oo toddobadan qof ka mid ah amaba 5 qof ee Soomaalida oo qaarkood dembiga lagu helay qaarna lagu waayay, xilliga la xukumayo garsoore Nancy Brassel ayaa sheegi doonta xilliga uu xukunkooda dhacayo, muxuu noqonayaa xukunkooda, haddii sidoo kalena ay abiil ka qaadanayaan garsoore qareenada u doodayay dadkan dembiga lagu helayna iyadana waa halkeeda. laakiin kiiskii xeerbeegtidu ay ku dhawaad muddada 5 maalmood ah ay ka baarandegayeen gabi ahaanba waa ay soo gabagabeeyeen. xeerbeegtidu hadda guryahooda ayay aadi doonaan maadaama 5 maalmood ay hotel ku jireen, xitaa aan loo ogoleen in qoysaskooda ay la xiriiraan. maxaa yeelay haddii xeerbeegtida 14 ee harsanaa ay ogaadaan ama 16 ee harsanaa in laaluush uu meesha soo galay, gabi ahaanba kiiskan waa uu baabi'i lahaa. kiiska hadduu mistrial noqdo waxay noqonaysaa in mar kale dib haddana dadkaasi maxkamada loo soo saaro. marka kiiska waxaa qareenadu laga yaabaa hadda u doodaya dadkan qof inay ku dacwoodaan in kiiskan uu ahaa inuu mistrial noqdo oo la baabi'iyo oo kiiskan meesha laga saaro maadaama laaluush uu soo galay. laakiin arrintaasi garsooruhu waa uu ka diiday. sidaa darteed hadda 7 qof 2 ka mid ah dembi waa lagu waayay, 5 qofna qaar ka mid ah dembiyada ay ku eedeysnaayeen waa lagu helay, kuwa kalena waa lagu waayay dembiyada ay ku eedeysnaayeen. sidaas ayay noqonaysaa. waynu arki doonaa sidoo kale xilliga xukunka dadka dembiga lagu helay uu dhici doono. 2 qof ee dembiga lagu waayay oo kale ah Saciid Shaafi Faarax iyo Cabdiwahaab Maalim Iftina, dhammaanba dembiyadii lagu soo eedeeyay midna 9 dembi ayaa lagu waayay, midna 3 dembi oo lagu soo eedeeyay ayaa lagu waayay. wixii kale soo kordha waynu idin soo gudbin doonaa xilliga xukunkaasi uu dhacayo. marka la xukumo maxay noqonaysaa waxyaabaha lagu xukumo waad la socon doontaan haddii alle idmo. aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idin la sida iyo nabadgelyo.